talaba inay joogsanatana faarax loo baasta tatasho waa dabdo aan ila hadlooyaa shaataan oo marisay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يال سودو هذا هالكن وشرم الليدي مقعين وشرم الكسودو هذا مقالص مقالكم عن كله وذا دونا معجسوين هذا كوين مقالات مقدشوه وبريش ودم بس كسودي واللي يرى لو مقعاب شري قرير أي أو كسونا مقالات مقدشوه عاصمة ذلك الصومالية أي أو حال لو حري عاو مقالات مقدشو محل لو حري بالكاسة طبعا أنا كله وذا جي هالكن مقال كسيش الجري waxaan ka codsanayaa marka ugu horeysa inaad channelka subscribe so like tay saarto channelka subscribe ita ku xujeen maayo inaad ii shirkayso aad iyo aad u maast waan kaaga mahadcelinayaa daawashada fiidiyoga waxaan ku 10 daqiiqo soo socda ama 8 daqiiqo soo socda waxaan kugula wadaagi doonaa xogta dhameystiran ee lagu qabtay Mr. Gariiraya caawa ee uu xiran yahay dawladda Soomaaliya haddaba dawladda Soomaaliya ama laamaha ammaanka ee magaalada Muqdisho iyo dawladda iyo booliska gobolka Banaadir oo iskaashanay ilaa ay hadda lama oga meel la geeyay Mr. Gariiraya kadib markii dawladda Soomaaliya ay caawa kala baxday gurigiisa oo ku yaalay degmada Boondheer ee magaalada Muqdisho Mr. Gariiraya ayaa barihii u dambeysay wuxuu gurigiisa ku gadanayay ganacsi waxyaabaha dumarku isku cadeeyaan ee loo yaqaan kaasi oo barihii u dambeysay ka ganacsanayay waxyaabaha dumarku isku cadeeyaan ee diyaarooyinka iyo loo yaqaan haddaba Mr. Gariiraya ayaa barihii u dambeysay wuxuu ahaa waxyaabo aan horey looga baran ama waxyaabo ku cusub ummadda Soomaaliyeed ayuu la soo baxay oo barihii u dambeysay ku kacay Mr. Gariiraya ayaa barihii u dambeysay waxa looga shakisanaa inuu lifti u qaatay dhinaca qoomaloodnimada ama uu dhiirigelinayo qoomaloodnimada taasi oo la sheegay inuu ganacsi intaasi oo caawa dawladda Soomaaliya ay barihii u dambeysay dabagal ku haysay kadibna lagu ogaaday inuu Mr. Gariiraya uu u joogo shirkad qoomaloodnimada magaalada Muqdisho haddaba Mr. Gariiraya ayaa waxa la sheegay inay waxay dhiirigelinayaan rag cadaan oo magaalada Muqdisho jooga oo barihii u dambeysay magaalada Muqdisho ku sugnaa oo barihii u dambeysay lacag siinay dhalinyarada diida qoomaloodnimada ama ay qofkii doonaya inuu dhiirigeliyo qoomaloodnimada ay lacag siinayeen ayaa lagu soo qabtay caawa Mr. Gariiraya gurigiisa ragaasi oo cadaan ayaa looga shaki qabay inay Mr. Gariiraya uu dhiirigelinayo ama uu wakiil ka ahaa oo ay doonayeen barihii u dambeysay inay dhalinyarada Soomaaliyeed fidneeyaan oo ay faasuq ula yimaadaan magaalada Muqdisho haddaba dawladda Soomaaliya ayaa barihii u dambeysay isha ku haysay xaaladda Mr. Gariiraya oo looga shaki qabay inuu ahaa qoomalood waayo markii uu barihii u dambeysay uu soo duubayay muuqaalo aan ummadda Soomaaliyeed u fiicnayn oo dhaqan xumo ah kuwaas oo diinteena Islaamka ee suuban lidda kuwaas oo ah nin raga oo dhabtiisa ku jiif Mr. Gariiraya taasi oo ah waxyaabo dhaqan xumo ah oo barihii u dambeysay uu Mr. Gariiraya ku dhaqmay haddaba dawladda Soomaaliya ayaa caawa gurigiisa kala baxday magaalada Muqdisho kadib markii looga shaki qabay ama lagu tumayba inay ku cadaatay ama ay ku cadaatay inuu ahaa Mr. Gariiraya qoomalood dawladda Soomaaliya ayuu caawa gacanta ugu jiraa Mr. Gariiraya oo ahaa wiilka dhalinyarada ah ee barihii u dambeysay gurigiisa ku ganacsanaya waxyaabaha diyaanada iyo gurigiisa ku gadayay kuwaasi oo barihii u dambeysay ay ummadda Soomaaliyeed indhaha ku hayeen oo ay uga cabsi barihii u dambeysay ummadda Soomaaliyeed cabasho ka muujinayeen daawooyinka uu keenay ee isku cadeeyo kuwaasi oo rag iyo dumarba uu ka gadanayay oo ay isku cadeynayeen dadku haddaba caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho barihii u dambeysay waxa ku soo badanayay waxyaabaha dhaqan xumada ah ee loo yaqaan qoomaloodnimada kuwaasi oo aan ahayn Mr. Gariiraya midkii qofkii ugu horreeyay ee qaata qoomaloodnimada ee Soomaaliya haddaba dhalinyaro kale ayaa jira oo isqariya ama lagu arkay barihii u dambeysay social media kuwaas oo TikTok aaladda loo yaqaan TikTok iskaga soo duubay muuqaaladaas dhaqan xumada iyo khaniisnimada haddaba barihii u dambeysay dawladda Soomaaliya ayaa waxay la dagaalamayay waxyaabahaas dhaqan xumada kadib markii ay yar soo gabanaysa 30 sano oo dawladda Soomaaliya ay burbursanay dawladda Soomaaliya 30 sano oo ay burbursanay ayaa dib u soo kabanaysa oo waxyaabaha isku dayaysa inay gacanta ku dhigto dhalinyarada faasuqa wada ee dhaqan xumada ka wada baraha bulshada muddooyin sii horeysay bay ahayd markii aaladda Telegramka oo dhaqan xumada ama dumarka qaaqaawo lagu faafin jiray haddaba dawladda Soomaaliya ayaa barihii u dambeysay indhaha ku haysay ama qabanaysa dhalinyarada ku sugan
magaalada muqdisho ee social media wax kusoo gudbiya kuwaasi oo challenge dowladdu ay ku raadinaysay oo wadooyin badan waxyaabo dhaqan xumo ay indhaha ka fiirsanaysay. haddaba dowladda Soomaaliya ee riboodka magaalada muqdisho ragga cadaanka ee kasoo dega ama dadka ajnabiga kasoo dega looma baaro waxaana loo baarinba maadaama aan looga shaki qabin waxyaabo kale. haddaba dowladda Soomaaliya qofka Soomaaliga markuu kasoo dego riboodkana waxay sameeyeen ilaa tan iyo cirib baaraan maadaama qofka Soomaali yahay. waxaan leeyahay dowladda Soomaaliya maxay ku dhacday in qofka shacabka ah ee Soomaaliga ee muwaadinka sida la arkay loo baaro qofka cadaanka aan la taaban. waxay ka dhigan tahay taasi in qofka cadaanka laga kalsooni badan yahay ka Soomaaliga ama laga cabsi qabo ama loo malaynayo inuu nin kibir badan yahay aan la taaban karin. haddaba taasi ayaa ina haligayso caawa in cadaan ah ama dad cadaan ay ku faafinayeen diinta qowmuluudnimada magaalada muqdisho lagu soo qabtay ama dowladda Soomaaliya ay ku soo qabatay caawa. taasna waxaa looga baahan yahay laamaha amniga inay indhaha ku hayaan maadaama ay barihii u dambeysay soo kabanaysa amniga caasimadda iyo xaaladda guud ee dalka Soomaaliya. waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inta hadda ilaa halka ila soo gaadhay inaad sii share garayso muuqaalka like-na ii saartay aad iyo aad baan xusnaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga quruxda badan aad igala qayb qaadatay muuqaalkan. tan iyo muuqaal dambe intaan ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo. looga baran ama waxyaabo ku cusub ummadda Soomaaliyeed ayuu la soo baxay oo barihii u dambeysay ku kacay. Master Gariir ayaa barihii u dambeysay waxaa looga shakisanaa inuu lifti u qaatay dhinaca qowmuluudnimada ama uu dhiirigelinayo qowmuluudnimada. taasi oo la sheegay inuu ganacsi intaasi oo caawa dowladda Soomaaliya ay barihii u dambeysay dabagal ku haysay kadibna lagu ogaaday inuu Master Gariir uu u joogo shirkad qowmuluudnimada magaalada Muqdisho. haddaba Master Gariir ayaa waxaa la sheegay inay waxay dhiirigelinayeen rag cadaan ah ama rag cadaan oo magaalada Muqdisho jooga oo barihii u dambeysay magaalada Muqdisho ku sugnaa oo barihii u dambeysay lacag siinay dhalinyarada diida qowmuluudnimada ama ay qofkii doonaya inuu dhiirigeliyo qowmuluudnimada ay lacag siinayeen ayaa lagu soo qabtay caawa Master Gariir gurigiisa. raggaasi oo cadaan ah ayaa looga shaki qabay inay Master Gariir uu dhiirigelinayo ama uu wakiil ka ahaa oo ay doonayeen barihii u dambeysay inay dhalinyarada Soomaaliyeed fidneeyaan oo ay faasuq ula yimaadaan magaalada Muqdisho. haddaba dowladda Soomaaliya ayaa barihii u dambeysay isha ku haysay xaaladda Master Gariir oo looga shaki qabay inuu ahaa qowmuluud. waayo markii uu barihii u dambeysay uu soo duubayay muuqaallo aan ummadda Soomaaliyeed u fiicnayn oo dhaqan xumo ah kuwaasoo diinteena islaamka ee suuban lidda kuwaasi oo ah nin raga oo dhabtiisa ku jiif Master Gariir. taasi oo ah waxyaabo dhaqan xumo ah oo barihii u dambeysay uu Master Gariir ku dhaqmay. haddaba dowladda Soomaaliya ayaa caawa gurigiisa kala baxday magaalada Muqdisho kadib markii looga shaki qabay ama lagu tumayba inay ku cadaatay ama ay ku cadaatay inuu ahaa Master Gariir qowmuluud. dowladda Soomaaliya ayuu caawa gacanta ugu jiraa Master Gariir oo ahaa wiilka dhalinyarada ah ee barihii u dambeysay gurigiisa ku ganacsanaya ama waxyaabaha diyaanada iyo gurigiisa ku gadayay kuwaasi oo barihii u dambeysay ay ummadda Soomaaliyeed indhaha ku hayeen oo ay uga cabsi barihii u dambeysay ummadda Soomaaliyeed cabasho ka muujinayeen daawooyinka uu keenay ee isku cadeeyo kuwaasi oo rag iyo dumarba uu ka gadanayay oo ay isku cadeynayeen dadku. haddaba caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho barihii u dambeysay waxaa ku soo badanayay waxyaabaha dhaqan xumada ah ee loo yaqaan qowmuluudnimada kuwaasi oo aan ahayn Master Gariir midkii qofkii ugu horreeyay ee qaata qowmuluudnimada ee Soomaaliya. haddaba dhalinyaro kale ayaa jira oo isqariya ama lagu arkay barihii u dambeysay social media kuwaasi oo TikTok aaladda loo yaqaan TikTok iskaga soo duubay muuqaaladaas dhaqan xumada iyo khaniisnimada. haddaba barihii u dambeysay dowladda Soomaaliya ayaa waxay la dagaalameysay waxyaabahaas dhaqan xumada kadib markii ay yar soo gabanaysay 30 sano oo dowladda Soomaaliya ay burbursanay. dowladda Soomaaliya 30 sano oo ay burbursanay ayaa dib u soo kabanaysa oo waxyaabaha isku dayaysa inay gacanta ku dhigto dhalinyarada faasuqa wada ee dhaqan xumada ka wada baraha bulshada. muddooyin sii horreysay un bay ahayd markii aaladda Telegramka oo dhaqan xumada ama dumarka qaaqaawo lagu faafin jiray. haddaba dowladda Soomaaliya ayaa barihii u dambeysay indhaha ku haysay ama qabanaysa dhalinyarada ku sugan magaalada Muqdisho ee social media wax kusoo gudbiya kuwaasi oo challenge dowladdu ay ku raadinaysay oo wadooyin badan waxyaabo dhaqan xumo ay indhaha ka fiirsanaysay. haddaba dowladda Soomaaliya ee riboodka magaalada Muqdisho ragga cadaanka ee kasoo dega ama dadka ajnabiga kasoo dega looma baaro waxaana loo baarinba maadaama aan looga shaki qabin waxyaabo kale.
haddaba dowladda Soomaaliya qofka Soomaaliga markuu ka soo dego airport-kana waxay sameeyeen ilaa tan iyo cirib baaraan maadaama qofka Soomaali yahay waxaan leeyahay dowladda Soomaaliya maxay ku dhacday in qofka shacabka ah Soomaaliga ee muwaadinka ah sida la arkay loo baaro qofka cadaanka aan la taaban waxay ka dhigan tahay taasi in qofka cadaanka laga kalsooni badan yahay ka Soomaaliga ama laga cabsi qabo ama loo malaynayo inuu nin kibir badan yahay aan la taaban karin haddaba taasi ayaa ina haligayso caawa in cadaan ah ama dad cadaan ay ku faafinayeen diinta qowmuluudnimada magaalada Muqdisho lagu soo qabtay ama dowladda Soomaaliya ay ku soo qabatay caawa taasna waxaa looga baahan laamaha amniga inay indhaha ku hayaan maadaama ay bariyo u dambeysay soo kabanaysa amniga caasimadda iyo xaaladda guud ee dalka Soomaaliya طبعا ka codsanaya muuqaalka inta hadda ilaa halka ila soo gaadhay inaad sii share gareyso muuqaalka like-na ay saartay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga quruxda badan aad iga qayb qaadatay muuqaalka